guud ahaan deegaanada Soomaaliland waxa saako ay tahay maalin Sabti bishuna tahay 27/2020 waxa si rasmi ah guud ahaan deegaanada Soomaaliland uga furmay imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada hoose dhexe iyo sidoo kale dugsiyada sare burco oo caasimada labada Soomaaliland ayaa iyaduna kamid ah magaalooyinka saaka imtixaanku sida tooska uga furmay dugsiyadooda 30 goobood oo burco ka tirsan ayaa imtixaanka saaka lagu galayay isduwaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer iyo sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka taliyaasha ciidamada booliska ee gobolka Togdheer oo kormeerin dheendheena ku mariyay goobaha imtixaanku ka socda ayaa soo kormeeray kadib markii ay soo kormeereen waxay warbaahinta kula hadleen iskuulka Sheekh Bashiir oo kamid ah iskuulada imtixaanka shahaadiga ardayda ugu fadhiisanaysa maamulka wasaaradda ayaa sheegay guud ahaan inuu ardayda u dhan yahay waxyaabihii lagaga hortagay cudurka COVID-19 maanta oo maalin Sabti ah taariikhduna ay tahay 27 waxa si rasmi ah u bilaabmay imtixaankii shahaadiga ahaa ee fasalada afraad ee gobolka Togdheer ee kaasoo guud ahaan dalka oo dhan maanta 8 waxnimo ka bilaabmay gobolka Togdheer 1774 arday ayaa saaka u fadhiistay guud ahaan waxaanay ku galayaan 30 goobood oo 26 ay magaalada gudaheeda yihiin 4 gooboodna ay dabadda magaalada ay ku yaalaan ama tuulooyinka falilaahi alxamdi 1774 ka ardayba saaka si amni ah ayuu ugu bilaabmay imtixaankii si degan jawi qurux badan ayuu ku bilaabmay protectionkii ama qalabkii la iskaga ilaalinaya xanuunka oo loo wada xidhay ardayda aan u wada qaybinay saaka face mask waxa kale oo iyaduna goob walba la dhigay saliidii jeermiska ee faraha la iskaga masaxay si arday walba markuu galayo uu iska sii masaxo wafti ahaan waxaan u nimid inaan gobolka indheeyna kormeer ahaan bal hawsha imtixaanaadka sida u socoto waxaan rajaynaynaa 30 goobood ee lagu galay gobolka Togdheer ahaan guud ahaan ay 26 kamid yihiin burco gudaheeda inaanu anaguna kormeerno bal aan eegno habsamay socodka imtixaanka sida u socdo iyo qaabka uu u dhacayo wafti ahaan waxaanu eegaynay ama indheeynaynay bal in protocolkii qaybtii COVID-ka uu fulayo sida galaasyada ardayda tirada ardayda galaysa imtixaankii wixii looga baahnaa ma gashteen oo tusaale ahaan protectionkii face maskii iyo hand gloveski imtixaanka sidoo u dhacaya iyo goobaha uu ka dhacaya oo ku hadlaya magaca goobta ama supervisorkii goobta waxa ku galaya 14 class classkiiba waa 6 arday baa ku galaya halkii bari hore 20 ka jirtay sababtoo ah waxa weeyaan dhibaatada uu keenay coronavirus ayaa loo qiimeeyay 31 goobood ee Togdheer lagu galaya maanta iyo ardadoodaba guul baan u rajaynayaa iyo sidii lagu yaqaanay reer Burco reer Togdheer ardadeeda insha Allah taala sidaad aragtaan waxa loo dhameeyay agabkii caafimaad iyo fariimihii caafimaad oo dhamaystiran Cabdi Qani Baafo RTN magaalada